ku dhigi kartaa magacan luqadda Englishka Georgie haddaba magacu isma bedelo markii aad ku hadlaysid luqad kale tanina waa qalad ay badanaa sameeyaan ardayda Soomaalida markii ay baranayaan luqadda Englishka oo waxaad arkaysaa qof ku dhahayo my name is Ahmed my name is Muhammad taasina waa qalad marka kaliya uu isbedeli karo magacu waa markii aad qoraysid maadaama luqadda Englishka aan laga helin xarfahan ama codadkan waxaad isticmaalaysaa xarafka ugu dhow oo instead aad qori leed Ahmed waxaad qoraysaa Ahmed but nevertheless markii aad ku dhawaaqaysid dhawaaqaagu waa inuu saxnaada instead of saying my name is Ahmed you should say my name is Ahmed sidoo kale dadka native-ka waa u caadi inay ku dhahaan Ahmed maxaa yeelay ma samayn karaan codka xa oo kuma jiro luqadooda waxaa jiro tusaale ahaan magacyo isku dhigmo tusaale ahaan magaca Daawud oo kale luqadda Englishka waxaa jiro magac u dhigmo oo ah David taasi micnaheedu ma ahan haddii adiga Daawud lagu dhaho inaad dhahdid hadhow my name is David no haddaba ma kamid tahay dadka sameeya qaladaadkaas noogu reeb commentiga that's it for today see you in my next video bye